doqon naagta hoos fadhiya ayaa inuu reer dumiye raba laakiin kiisa la dushay laba nin baa deris ahayd labada nin oo deriska ahayd waxa weeye ninna waa xabaal tagi jiray ninna gurigiisa ku qayilaa waa iska fadhiyaaba islaanta xoogaa beelaha looga soo tuuraa wixiisaas meesha la isaga cunaa ninkaani markaa maalin walba waa maqan yahay wuxuu soo helo reerka u keenaa ninkii naagta ku soo diray wuxuu yirkaale midkaan maalin waliba maqan oo reerkiisa aan maalin xataa aan la joogeynin muxuu yahay ninkaan waa maxay naagta intuu tagtay war waa maxay ninkaan aan maalin xataa nasanayn oo maalin walba uu sii geeyfan naagtii ninkii farta ka saartay warhaal idin kaale maalin xataa mana sitid xataa jimci xataa waa lagaala ay hay waxa kugu dhacay xaga warku ka yimid yuri meesha warku ka yimid u sheegtay muxuu yiri ninkii warku ka soo baxay gabadhaan uu qabay bamba loo soo dhiibay laakiin bambadii intuu ku celsho isagu ku qarxiyay muxuu sameeyay wuxuu yiri ninkani waxa uu la bixi lahayo maalin guriga la fadhiyo islaantu ka shakisan yahay islaantu in loo daba maro ayuu shaki ka qabaa marka islaantu ilaashada aniga laakiin aniga shaki ka qabo waa noo xamaal tagaa oo shaqa noogu maqan naagti fogay tiri oo tii u tagtay tii wariya adiga ninkaadaba ku ilaashado inaad xar dhaafto ka cabsanayaa ma ariga ninkii waxaad ka rabtaa naagti waa orday ninkii intuu u tagtay ay wuxuu tiri wariya oo aniga niman iga ilaalisa miya waxa la bixi lahayd waa maxay warbaahin inkaarana taawariya naga tag warbaanad ilaada qab ninkii naagti was furay reerku waa jawaab burburay reer kale waa dhaqmaayay miskiinki ee naagtiis waa dhaqmay bambada markii ninkii ku qarxiyay soo arki maysaa waxa weeye marka doqon naagta hoos fadhiya ayaa inuu reer dumiye raba laakiin kiisa la dushay soo arki maysaa ala ayal marka waxa weeye aqoon islaamku waxa uu qabaa ninkii inuu dhaqaaqo shaqeeyo waxa weeye wax soo saaro waxa uu soo dhiib reerka u keeno la yukallifu Allahu nafsan illa wasaha tii la rabay marka isaga ka gaabiyay ala ay xal marka waxaan leenahay hadii hadda duruuf kaliftay oo rag ay garan waayeen xuquuqdii lagu lahaay oo ay ayagu inay fadhiyaan oo naagtu ay afka wax u gelisay ay rabaan arintaas waa arin gaf ah waa arin sharciga aanu jeclayn oo aanu ogoleen gabadhu wax waa yeelan kartaa xoolo waa yeelan kartaa laakiin asigu fadhiyo iyadu ay baxdo ya haweenka maxaa la yiri waarna fi buyuutikuna soomahay haweenku inay joogaan rag u shaqeeyo ayaa sharcigu amray ma garateen hadii duruuf timaado waxa weeye oo hadda asiga baashi ka gaabshay taas meesha waxa weeye waa khalad saxid u baahan waay